السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وارتبا السلام يا دمانتين با walaalaha Soomaalida ah halkaan sida tooska iga daawanaya meel kasta caalamka joogtaanba aad baan idin salaamaya soo dhawaada Axmed Cumar soo dhawow dhamaantiin aad soo dhawaada waan idin salaamaya meel kasta aad caalamka joogtaanba waxaan runtii aad uga xumaaday oo waxyaalo runtii laga xishooda ah dhamaan ummadana dhiigooda aad u damqanaya wixii lagu sameeyay walaalka masaakiinka ay xanuunsan Cabdiraxmaan Xaaji Dabcasar oo hadda dhamaantiin inuu daawanayni anagoo daawanayna si live ah runtii loo dilay ilaa isaakan ilaa xalaytan aan daawanayni marka asagoo walaalkaasi lagu sameynayo jirdil iyo asagoo markaasi jirkiisa oo dhan runtii ay aad uga muuqdaan dhaawacyo marka loo geystay waxaan runtii anigu markii hore u qabay shakhsi aantayda maadaama Dabcasar uu yahay nin anigu aan caadi ka u aqaano marka labaadna nin xanuunsanaya iska ah in wixii uu noo sheegayay ee runtii iska been iska ahaayeen ama kaftana iska ahaayeen laakiin markii hadda muuqaalkii ugu dambeeyay runtii aan rabo inaan seexdo ayaan arkay waliba indhahiga aan ku arkay markaasi waxa loo geysanayo walaalkaasi masaakiinka ah Cabdiraxmaan Xaaji Dabcasar oo waliba aan ogaaday in markaasi imaanshihiisii magaalada Hargeysa uu tagay xataa ay loo yeeray oo dadka Hargeysa u yeereen ka bacdina ay ku sameeyeen inay soo dhaweeyaan si qurux badan u soo dhaweeyaan markii ugu dambeysana la dilay runtii arintaasi waxay noqotay arin nafteedana cajiib galisa dad kasta oo Soomaalida in daawanaysana runtii aad uga yaabisay waxaan markaa sameeyay markii aan arkay muuqaalkii runtii aad ka u foosho xumaa ee dhamaanteen aan daawanayna markii aan arkay waxaan go'aansaday inaan la xiriiro booliska localka ee magaalada Columbus Ohio si markaasi aan bal u report gareeyo oon u sheego in walaalkaasi Soomaaliga ah misana American citizen-ka ah halka lagu dilay waliba videogiisina uu reference yahay dhamaan dadka ay arkayaan waxa ii yimaaday ilaa iyo 3 gaari oo booliis ah ilaa iyo askar kala duwan ay saaran yihiin waxaan soo saaray profile-kiisa waxaan tusay muuqaaladiisii ugu dambeeyay oo ahaa kuwii markaasi dhaawacyada jirkiisii ay ka muuqanayeen waxaan tusay addresskiisii informationkiisii waxaan tusay meesha uu markaa joogo waxaan tusay videogii ugu horeeyay uu leeyahay yaan la idilin yahay taabanin arintii la midka ahayd waxaan isku dayay intii aan karamkayga inaan markaasi u turjumo balsi loo fahmo walaalkaasi waxa markaasi soo gaaray booliskii dhamaantii informationkii dhan waa kuwan waraaqii aan hoos ku hay informationkii dhan baan u qoray booliskii waxay ugu yiraahdeen waxaan la xiriireynaa FBI-da arrimahaasina waxa wax ka qaban kara FBI-da maadaama booliskii FBI-da ay kala duwan yihiin waxay la hadleen FBI-dii waxay ugu yiraahdeen nasug banaankan istaagay waxay la hadleen FBI-dii waxa loo sheegay magaciisii iyo waliba full name-kiisii informationkiisii Facebook-kiisa laga helay waxa lagu sameeyay waxa la yiraahdo identification mataqaana personality in qofka markaasi la xaqiijiyo qofka uu yahay way xaqiijiyeen Cabdiraxmaan Dabcasar mataqaana waa nin la garanayo aad muctarif uga ah magaaladani waxay yiraahdeen marka FBI-dii xilligan hadda aynu joogno waa xilin habeen ah waa xilli aad late ah waxyaalaha xafiisyada iyo meelaha kale oo communication-ka ay sameeyaan safaaradaha way xiran yihiin information-ka dhan bay iga qorteen waxay yiraahdeen waagu markuu inoo bariyo anaga xagga naga ah dhankiina dadka jooga Soomaaliya Afrika qeybaheeda kala waagu u bariyay waxay yiraahdeen waagu markuu inoo bariyo inuu sameyn doonaa inaan la xiriirno waraaqa u dirno emailo waxay ii sheegeen inay email u diri doonaan safaaradda Soomaaliya ku taala safaaradda Addis Ababa ku taala ay yihiin labada safaaradood marka ugu dhow hadii marka uu dhintayna ay report ina soo siin doonaan hadii aynu nahay dadkii ehelka iyo qaraabada iyo waliba jiiraanka u ahaadeen nahay Cabdiraxmaan Dabcasar insha Allah ta'ala intaasaan sameeyay waxaan markaa rabaa inaan ku daro dhanka kale tana hadii aan dhamaystiro waxay ii sheegeen ay siiyeen address ah immigration-ka magaaladan ay ku leeyihiin Mareykanku si markaasi information-kii wixii ka soo baxay baaritaankii ay sameeyeen iyo xiriirkii ay sameeyeen ay markaasi information iga siiyaan aniga shakhsi ahaantayda report gareeyay marka waxay ii sheegeen in addresskaasi aan tagi karo anytime oo bari laga bilaabo wixii report ku saabsan shakhsigaas walaalkeen ah la dilayna markaasi la soo ogaado xaaladiisa meesha ay markaa marayso taa marka waa aniga karamkayga iyo wixii marka aan ka geysan lahaa walaalkaasi aynu arkaynay sida qaabka daran ee foosha xun ee naxariis darrada ay u dileen shakhsiyaadka marka ayagu isku sheegaya inay dawlad yihiin taa marka karamkii aan ka geysan karay alxamdulillah ilaahay baa igu waan ka geystay waxaan rabaa marka inaan u soo laabto in yar aan marka runtii aan ku daro intiina walaalaha ay sida live-ka ii daawanaysa
waxaad ogtiin dhamaantiin ba dabcasar inuu yahay nin xanuunsanaya, dabcasar inuu yahay nin oday ah, dabcasar inuu yahay qof dhamaanteen ba qof kasto maanta Facebook isticmaala uu og yahay dabcasar inuu yahay qof xanuunsanaya, dabcasar uu og yahay qof maskaxdiisu aysan markaa fadhinin inuu yahay. marka waxa aniga cajiib ila noqday in markaasi dabcasar si live ah aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn marka loo dilo waliba anagoo arkayna ilaa iyo shal ilaa xalad dabcasar ilaa iyo intaas oo muuqaal oo kala duwan ayaa la soo galiyay oo lagu dilayo. waxa loo dilayana runtii aad dhageysataan waxa ugu weyn oo loo dilayo walaalkaasi waxa weeye shanta Soomaaliyeed baan boqor u ahay weeye, wax kala ma ahan. qodobka labaad oo loo dilayo islaahay waa loo dilayaa maanta walaalkaasina waxa weeye de waa dabcan mansabka ama qabiilka marka uu sheeganayo ayaa loo dilayaa dabcasar. waxaan marka islaahay wallahi waa arin ceeb ku noqon karta cid kasto aqliga u saaxiib ah, waan arin runtii fadeexad ah haddii aynu nahay dadka koonfurta ka imaada Soomaaliya. arintaasi waan ka gudubnaa alxamdulillahi rabbil caalamiin. qofka qabiil kasta uu sheegto xurguf kasta oo reerihiisu laga sheegto ay sheegtaa in maanta qabiil lagu dilay alxamdulillahi waan ka soo gudubnay. laakiin waxaan maanta ay cadeeyeen reer Hargeyso iyo waliba walaalaha Isaaq ee magaaladaasi degan in waxa ay ku dhaqmayaan markaasi ay tahay qaabkii laga soo gudbay oo sagaashameeyadii iyo wixii la midka ahaa laga soo gudbay oo ahayd in shakhsi loo dila waa reer hebel iyo magaalada nadiib uu joogaa in loo dilo. bayna tusayaan runtii waxaana anigu islaahay kolley dabcasar waa shakhsi kamid ah jifada uu ka dhashay maalin kastana de 100 qof ama asaga la mid ah oo ama ku qabiil ah ama ka qabiil ah baa la dilaa. qof dhintaan kolley waxaan u maleynayaa maanta Soomaali ahaan iyo qabiil ahaan inaanan u maxal yiraahdaa aanan u dhutin doonin. laakiin waxaan u sheegayaa walaalaha daawanaya anoo waliba qaab qabiil u hadlin waxaan u sheegayaa in dilka dabcasar uu macnaheedu yahay in la dhax dhigo dagaal iyo jifo iyo qurun iyo balaayo laba reer oo walaalo ah oo muslim ah ayada waliba loo soo marayo maamulka maanta magaalada ka dhisan wax alla wuxuu geystaa hadduu isleeyahay Somaliland baa loo raacanayaan looma raacanayo. dadka maanta Somaliland deganna waa qabiilo kala duwan, dad fara badan oo Soomaaliya kala duwan baa jooga. cid marka aan Isaaq ahayn oo la weydiinayo dilka dabcasar ma ay jirto. haddii markaasi qabiil ahaan loogu argudi doono iyo haddii markaasi wax kala sameyn doono waxaan idin sheegayaa Isaaqow waxa maanta ay maamulkiinu suubinayaan runtii waa foolxumo, waa ceeb. ugu yaraan waa inaad ka dhiidhisaan oo dadka tustaan walaalaha ah oo soo baxdaan oo tustaan xataa ugu yaraan inaad ka fakir duwan tihiin maamulkiina foosha xun waxa aan qurxaneen ku dhaqmayo waliba si xataa kaamirooyinka caalamiga ayagoo hayaan xataa oon xataa ku dhihin xataa iska damiye kaamirada qofka markii la dilayo muslimka asi qurux badan baa loo dilaa. laakiin qof intaasoo malaayiin ee daawanayso, caruurtiisa daawanayso, xaaskiisa daawanayo, in abtidiis daawanayso, in marka aad dishaan runtii waxna la ku garab yeeli kara ma ahan, wax anagu aan qaadan karnana ma ahan aase maxaa la yiraahdaa ehel ahaan. dadka kale to walaalaheena waxay markaa qaadan karaan runtii ma ahan. waxaan marka jeclaysan lahaa inaad dhamaantiinba waliba dadka Hargeysa jooga arintaasi aad ka dhidhidaan oo ugu yaraan aadna tustaan in arintaasi aad ka soo horjeedaan. laakiin haddii aad ka aamustaan runtii oo na tustaan arinta meesha taala inaad adinkuna raali ka tihiin baan tusaysaan waxayna noqonaysaa runtii arin aynu mataqaanaa aad u foolxumo badan. kolley waxaan u maleynayaa dabcasar ilaa iyo berri ilaa iyo waagu markuu anagu xagga naga ka baayay warcad waa laga heli. hadduu dhintana dabcasar meydkiisa halkaan la soo keeni doonaa insha allahu tacaala, aynu weliba ku aasi doonaa. haddii uu nool yahayna dabcasar haddii asagoo hadlaya Facebook aynu ka arki doonaaba oon taasaaba marqaati inoo ah. laakiin runtii wixii meeshaasi ka dhacay wax aad u foolxun, wax aanan fiirsan karinin oo dhammaanteenba dadka muslimka walaalaheena ay aad ugu xumaadaan ayay ahayd. waxaana jeclaan lahaa dhammaantiin inaad muuqaalkan share garaysaan maadaama uu content gareynayo macluumaad aad muhiim u ah oo ku salaysan sidii markaasi walaalkan loogu heli lahaa xal si toos ah loogu dilay meel markaasi ay maamul ka talinayaan. waxaan kaloo caawa runtii xaqiiqsaday oon idin sheegaya walaalaha i daawanaya waxaan naloo sheegi jiray Hargeysa inay maamul ka jiro, waxaan naloo sheegi jiray inay Hargeysa dawlad ka jirto. anigaan in la hadlaya Muuse Biixi markii hadda la dooranayay runtii waa tii aan idin lahaa war walaala inuu nahay yaan la iscaayi maamulku meesha uu ka bixi karaa. arintaanu waa la siyaasadeeyay ilaa haddan waan aaminsanahay in la siyaasadeeyay. laakiin waxa mataqaanaa meesha ka baxay inaynu aamino inay Hargeyso kala dambeyn ka jirto, inay Hargeyso democracy ka jirto, inay Hargeyso tahay meel federaal ah runtii cid hadda ka dambe loo sheegi doona malahan.
waxaana ku shaabadeenna inay magaalo qabiil tahay weliba qabiil ay xog ku haystaan burcaan maanta waxba laga samayn karinin boorama maanta waxba laga samayn karinin meelaha kaleeto laascaanood iska badaaba iyo meelaha lamidka waxba laga samayn karinin waxaan maanta kasii liidataan wallahi ilaahay baa iga sarreeya koonfurtaad caayi jirteen meesha maanta koonfurta ugu xun inaysan maanta arrintaas iska dhici karinin waxaanana tusteen aad qabiil mataqaanaa amdi aad tihiin qabiil soomaaliyeed oo qabiilka adagna wallahi inuusan jirin oo bilaahi soomaali waa isgaranaysaa inta qabiil wax lagu macaamil lahaana qabiil soomaaliya hore u wadi waayo wax ka ficnaan lahayd in qaab qurux badan loo dhaqmo midda kaleeto nimanka kaleeto leh maxaa la yidhahdaa qaatuma ahaan jiray maanta ito sheeganaya inay dabcasir ehel leeyihiin jooga meesha la yidhahda laascaanood hargeysa jooga meel kasta jooga ayagana waxaan u sheegayaa runtii waxa maanta dabcasir lagu sameynayo waa wax ka duwan waxyaalii lagu samayn jiray dadkii hore hargeysa lagu qaban jiray qof kastoo hargeysa lagu qabto waa la xiri jiray oo waxaa lagu samayn jiray xabsi baa la geyn jiray cabdimalik muuse coldan baynu ogeyn xabsi baa la geeyey farxaan xidig baynu ogeyn xabsi baa la geeyey nimcaan hilaac waa hadda midda leeyahay xabsi baa la geenaya laakiin waa record in markaas waxaa la yidhaahdaa inta la qabto walaal la arkayo la dilo in la dilo qof way ka duwan tahay in qof la xiro haddii ay marka u arkeen inuu dhibaato ku hayo inuu fadqalala ku hayo kow waxay dhihi lahaayeen hanaga soo gelin hargeyso labo hadday u arkeen inuu fadqalala suubinayo way ka saari lahaayeen magaalada way tarxiili kareen saddex waxay samayn kareen dad la ehel ah oo la qaraabo ah magaalada jooga meel kastana jooga waxay dhihi lahaayeen hadna la ka qabto taleefonkay ka qaadi kareen waxaa marka cad meesha inaysan kuma marsiyoon karin maanta ito reer hargeyso dabcasar waxay u geysteen inay markaa tahay waxa la yidhaahdo in markaasi ay tahay inuu yahay nin kasoo horjeeda nabadda iyo xasiloonida ay markaa sheeganayaan reer hargeyso ay tahay laakiin wax markaasi qaab qabiilaysan loo sameynayo laakiin waxay noqon doontaa kolley arrin tii ugu dambeysay oo aynu ka aragno xumaanta ay reer hargeysa sameynayaan dhammaantiin walaalaha i daawanayana waxaan aad idinkaga codsanayaa inaad arrintan aad uga dhidhisaan qof kastoo idinka mid ah inuu live ka soo galo in qof kastoo idinka mid ah uu dadka tuso in dabcasar uu yahay walaal laga gardaran yahay oo dhiiggiisa runtii si akhlaaq xumo ah anagoo arkayna loo dilayo haddii aan laga dhidhinna waxaad ogaataan in maalin alla keenay qof masaakiin ah ama isaga la mid ah ama xanuunsanaya ama aan mataqaanaa waxba galabsan in hortiina lagu dili doono waxaana kaloo rabaa inaan idiin sheego runtii hargeysa wax badan bay nabad ahayd wax badan bay taagnaatay laakiin hadda waxay maraysaa wixii la dhihi jirta turning pointiga straight bay u socon jireen laakiin maanta hargeysa hoos bay u dhacdaa waxaa keenaya hargeysa maanta hoos u dhacdana waa waxa maanta boorama ka socdo leyni macnaha hilaac baa la xirayaa oo waa la dilayaa oo aabihiis baa la dilay waxa maanta dabcasar lagu dilayo waxaad arkaysaan qof aan isaaq ahayn ama qof aan ku ehel ahayn marka in wixii rabo lagu sameynaya dadka u muuqanaysa waana wixii ay shalay isaaq kasoo carareen oo siyaad barre oga soo carareen lahaayeen waxaynu doonaynaa democracy waxaynu doonaynaa dadka inaan la caburnin waa wixii ay u lahaayeen xatraawi maxaa loo caburinayaa wax maanta hargeysa ka socda weeye haddii marka ay magaalada hargeysa markaa ku xoog badan yihiin walaalaheen isaaqana waxaad ogaataan in meel kastaba soomaaliya ay qabiil ku xoog badan yahay qabiil kastana deegaan iyo gobol haysto qurbahana laisla joogo wax kastana lagu samayn karo qof kastoo ehel la ah qofkii markaa wax geystay waana foolxumo marka in halkaa loo laabto aan jeclaan lahaa walaalayaalow inaad waxaad suubinaysaan ka joogtaan in ninka masaakiinka xanuunsanaya aan waxba loo geysan hoteelka ida lagu soo jabiyay baan aragnay wixii dambe lagu suubinayna ma garanayno waxaan ka codsanayaa walaalayaalow ninka inaad caafimaadkiisa iyo lafihiisa aad markaa iska ilaalisaan waana xanuunsanaya baaq baan kasoo dirnay marar badan waa sheegnay waana xanuunsanaya maraykanka iyo meel kastana waa laga ogyahay qof kasta oo Soomaali ana waa ogyahay laakiin haddii aad dishaan oo mataqaana markaa wax ku samaysaan dil iyo wax la mid ah runtii ayaduna waxay noqonaysaa marka wax idinku shaabadaysma nin la dilina kulli qaab loo ilgarayo dadkii dilay waa la garanaya qof kasta Soomaali uu garanaya anigu cidna uma hanjabayo mana matalo anigu qabiil magac qabiil kuma hadlayo waxaan idin sheegaya cadaalad darrada iyo qurunka iyo baqtiga hargeysa ka jira iyo waxa aad noo sheegaysaan oo beenta aha aad baan idin cabaareynayna dhamaan hadaan waliba Soomaalida walaalaha ee koonfurta degan meel kastaba degan hatta reer qaatuma nagu jira cid kasto inaga mid arintan aad baan u cabaareynayna waxaan fiirsan karnaa ma ahan dhamaantiina waa inaad ka dhidhisan weeyay sawiradiisa la soo qaato maxaa la yiraahdaa intaan arintan ku jiro hadii ilaahay nafta ii daayay waagu markuu ii bariyo dhankayga subax iga noqotana wixii aan kala soo kulmay information in la wadaagi doona dabcasar hadii uu dhintayna meydkiisa halkaan lagu aasi doona la keeni doona hadii uu nool yahana asaga dabcan soo hadli doona dhamaantiin walaalaha daawanayana aad baan idin salaamaya Hamze Sheekh Umar walaalkii ilaahay waa ku arkaa waa ku salaamaya
intii aan salaantiin arki way aad baan idin salaamaya guul iyo gownimo idin rajeynaya waynu ka gudubnay runtii qabiil iyo qurun iyo nin maanta qabiil lagu dilo hadaynu nahay Soomaalida walaalaha waliba koonfurta degan kuwa Hargeysa degan kuma jiraan oo goonida ah oo qurunka ah waxaan ka hadlay anigu waxa weeye xaqiiqatan hatta kuwa boorma iyo meelaha degan koonfurta walaalaha aad baan u salaamaya laakiin kuwii Hargeysa degan hadii aad ka jawaabi weysaan cunsurnimada iyo bakhtiga magaalada aad ku haysaan iyo dadka aad shakhsiyaadka qabiilka aad ku baaysanaysan haydin sheega in meel kasta runtii ay qabiil ka jirayo in meel kastana ma taqaana cidii haysatana ay wax ka sameyn karto taa hadii dawladdu u gaarayeen si aad baray dalka ilaa hadda uu haysan lahaa haydin sheega inaad qurunka ka tanaasushaan hadii aad ka soo horjeedaan arinta ayada aan ku cambaaraynayna waa inaad ka hor imaataan waa inaad istaagtaan waa inaad banaan baxdaan waa inaad tustaan calaamad ah inaad ka soo horjeedaan waxa ay sameynayaan maamulka magaalada hadda qabsaday hadii laakiin aad ka aamustaan waxa anaguna ogaanaynaa on raali ka nahay inaad adinkuna raali ka tihiin dadka masaakiinta magaalada lagu dulmo inaad raali ka tihiin inaad qabyaalaystayaal iyo quruntiin baan anaguna marqaati kana laakiin hadii aadna garab istaagtaan na tustaan waxa meesha ka jira inay cadaalad darro tahay ilaa saaku hotel ku jiray waad ka warqabteen waad arkayseen wuu ooyahayay waa nin handicap ah maskixiyan iyo physically buu xanuunsan yahay adinka u yeertay oo yiri kala saliid zeytun nooga sheekeeya adinka cashiriisa u baahnaa anagu kollay waxaasi maanan raali ka ahayn waan celin weynay waan naga xanuunsanayo ahaa dii marka arintaas aad ku farxaysaanna kollay nin la dilo Soomaali laga dilo kollay waan arki jirnay meel u buu tagi doonaa laakiin hadii aad ka soo horjeedaan dadkiina wanaaga jecel ee waliba reer Hargeysa yaan la hadlayaa waa inaad arintaas inaad tustaan waxyaalo aad uga soo horjeedaan waa inaad isku daydaan xataa inaad u tagtaan meesha uu ku xiran yahay dawladda lagala hadlo oo tiraahdo annaga celinayna oo qarashka ka bixisaan oo isku daydaan inaad xal sameeysan si dadka qabaa'ilada ah ee walaalaha ah ee Soomaalida ay meel kasta marka degan ay u kala badbaadaan laakiin hadii aad ka aamustaan oo tustaan maxaa la yiraahdaa aad halkaan fani ka dhigtaan mid kale waxaan arkay fara badan oo ayagana runtii waxyaalaha faniga ah ka dhigaya qof walaalkiin oo la dilayo oo hatta qayb kamid ah ay qosol soo saarayaan waxaad ogaataan marka in la dulmo qof walaalka ah inaad raali ka noqotaa macnaheedu waxa weeye inaad dayuustahay weey ha ka raali noqonina in walaalkiin la dilo ha ka raali noqonina in qof walaal masaakiin ah wallahi laga raali noqdo waa xanuun weeye waa cudur dadka ku dhaca ha ka raali noqonina u istaaga kuwina Hargeysa jooga dad aqli u saaxiibtiin hadina aqli u saaxiib ahayn hadee shabad baan idinku dhufaynaa waxaan idin leenahay qabyaalaystayaal baatiin hadii kale tawaad ka hor imaataan banaan baxyo u sameeysan magaalada ugu tagtaan si aad u soo dhaweysaan quruxda badnaan aad magaalada oo soo ama bixisaan inkastoo wali aad ma taqaana dharkiini iyo xumihiini baa la arkayo waayo adinkoo magaalada jooga la dilay adinkoo magaalada jooga ma taqaana uu ilaa maanta ku hayay madaxa dhig iga furmaya cidtiina ahayd oo inta u tagtay isku dayday inay badbaadisan ma aysan jirinin dhulkaad ku bixin karteen diyaarad baad saari karteen boorama haduu tagi la safe waan la duu meesha laas caanad ma laana safe waan la wallahi baan labada mid lagu dileen marka meesha balaayadu taalana waa magaaladaasi caasimada lagu sheegayo marka waa in salaamaya walaalayaal in badan baa in salaamaya guul iyo gownimo iyo rajeynaya waanaad ka shaqeysaan markaasi nabadda oo aanan daawanin cadaalad darrada iyo dadka shakhsiyaadka ah oo la dulmayo maanta halkan waxaan dhigaadayna Soomaaliyana waa cadaalad darrada maanta meesha waxaan dhigayna waa qurunka iyo bakhtiga aynu raali ka noqonayna way mid la dilahayo baad raali ka noqonaysaan mid kala lagu dulmaya as raali ka noqonaysaan ha ka noqonina raali hadii uu qaldan yahayna qabta adinka la joogay oo waxa tiraahdaan maxaa la yiraahdaa ka hadal waxaan runtii aad u jeclaystay hadal hadda uu lahaa Cabdifataax Boodariga Caashaqa walaalkaas Soomaaliyeed runtii wanaaga jecel uu yiri maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Cabdimalik Muuse Coldoon uu fiirsanayay maxaa la yiraahdaa uu yiri magaalada uu la joogay ninkii magaalada ku soo dhaweeyay buu ahaa hatta hadii ninkan la dulmayo hatta hadii uu barkeysan yahay waxay ahayd inuu Cabdimalik Muuse Coldoon runtii uu arintaasi qayb ka qaato nin muctarif oo magaalada laga yaqaano magaaladiisa joogo eelkiisa dhex joogay buu ahaa shala markuu lahaa waan la dardaarmayay Cabdimalik Muuse Coldoon iyo maanta markii la dilay wax u dhaxay malaxaad buu asagana diyaar u raacay baa lagu yiri kama warqabo runtii asagana dhaliisha in badan buu ka qaadanaya aad buu in badan uga qaadanaya cid kasta oo magaalada joogto maanta magac leh oo fanaan ah ama siyaasi ah ama asaga ku cid ana arintaasi qayb weyn bay ka noqonaysaa cid kasta oo magaalada joogtana qayb weyn bay ka noqonaysaa waayo meesha lagu dilay ninkaas masaakiinka xanuunsanaya dhamaantiin baad joogteen
warwayd in salaam ya asxaabtiin dhamaantiin aad baan idin salaamaya guul iyo gubna idin rajeynaya muuqaalkana hala share gareeyo dhamaantiin waxaad sameysaan ha ka raali noqonina waxyaalaha noocan kala cadaalad darrada ah hana ka dhiganina walaal la dilayo masaakiin ah qosol iyo fan iyo dabca tarsan iyo dabca sar waa la haystaa waa nin masaakiin ah waa nin la dilayo waa nin waliba lagu dilayo qabiil iyo mansab uu ka dhashay weed arkaysan ha ka raali noqonina dhamaantiin inta gobonimada iyo walaalnimada jecel u istaaga guul iyo gubna idin rajeynaya waa idin salaamaya insha Allah